qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa laga arisanayay xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan degmada Afgooye oo la sheegay in xaalad gaar ah ku sugan tahay maadaama jaaliyadda ay sheegeen inay ka xun yihiin xilka qaadistii dhawaanaha lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Afgooye Mudane Cabdiqani waxayna jaaliyaddu ka dhawaajiyeen in Cabdiqani uu yahay gudoomiyaha rasmiga ee ayagu aqoonsan yihiin munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Mudane Cabdiqaadir Mudey waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda kulankan ayaa waxaa sidoo kale baaq loogu diray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxayna jaaliyadda ka codsadeen dhinacyadaasi in xaqooda ay ka helaan maadaama gobolka Shabeellada Hoose oo muhiim u yahay labada dhinac dowladda federaalka Soomaaliya iyo midda Koonfur Galbeed waxaan u sheegaynaa haddaan nahay annaga reer Shabeellaha Hoose laga bilaabo saacadaas inaan nahay dad isku tashaday ka tashaday aayahooda aanan u dulqaadanaynin cid dambe oo ku takrifasha xuquuqdooda insaan deegaankooda dhaqankooda haddii aad tihiin ummad wax maqlaysa oo aqliga talinaya war na maqla intaanan qoriga qaadan na maqla intaana dagaalaminan maqla war dacwaan nahayna maqla oo wax naga qabta arinteenna oo dhinaca dhaqaalaha dagaalka nagala jirta naga qaada dhinaca waxbarashada naga qaada dhinaca dadnimada iyo bini'aadamnimada nooga qaada haddaa Soomaali tihiin waxa waaye ninkii maanta noo korana waa inaan anaga aan face to face miis la fariisanaa waxaan nooma cuntuma adiga mas'uul noo ah waxaan nooma cuntuma 20 jeer aan kula hadalnay waa inaad systemkan at all bedeshaa may maahino waa ina anaga iska bedelnaa haday taa dhici weysane hadda inteena qurba joogta ah meel badan oo laga dacwoodaa jiro waa ina isku duubanaan oo hal gacan noqonaa dacwoonaa siyaasadda Shabeellaha Hoose waxa waa inaan ku taageerno saan xaqqa Shabeellaha Hoose iyo dadka deegaanka degan saa u heli lahayn waxaan ku heli karaa union inaan la isku biirsado siyaasiyiinta la isku imaado oo la isgarab istaago oo laga hadlo wixii xaq ah xagee u marnaa hal haddaan heli karin oo meel loo maro meel lama gaari karo annaga gudoomiyaheeni oo saxda ah Cabdiqani Yuusuf Axmed Boolimoog wali asagaa noo ah degmada Afgooye asagaana ah oo gudoomiyaheena ah annaga wali ilaa hadda asagaan aaminsanahay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Xasan Sheekh Maxmuud dadkan ayna dul keeneen nimankaas ay magaalada keeneen dulmiga nagu haayo inay naga qaadaan in nimankaasna laga bedelo oo Afgooye laga qaado oo deegaanka dadkii lahay u tashado ayaan ku talagalnay waxaan rabnaa dawladda Koonfur Galbeed ama dawladda la yiraahdo maxaa la yiraahdaa central government digu waxaan leenahay Soomaali xuquuqda haday sami weysay Shabeellada Hoose arinteedii ha loo daayo anaga dhamaanteena markaan waxaan leeyahay gobolada dadkooda dhistay anagana aan dhisano dadkaas waxay rabaan badbaadi rabaan waxbarasho ma haysadaan caafimaad ma haysadaan wax geeg iyo haysada ma jirto cid maqanna ma jirto uni maqan unina ma arago hayno walaalayaal dadkaas al arago walahlan qabado waxaan u sheegayaa baaq u jeedinayaa maamulka Koonfur Galbeed waxaan leeyahay waa kuwii ku dhisay shalayto oo iska indhatiraysid waxaan leenahay gobolka Shabeellaha Hoose iska indhatirin baaqeen waxa waaye inaa u dhaaftid maamulkooda iyo dantooda ay ka tashtaan waxaa tiin dadkii xadaaradda waxaa idinka dhashay akbar akaabiirta culamaa Soomaal ayaa idinka dhashay waxaa tiin halgamayaashii waxaa tiin ummadda Soomaaliyeed guddiga la tashiga arrimaha gobolka Shabeellaha Hoose horta hore waxa naga maqan waa lack of leadership idan ku daba feelno oo hoggaanka noo qabata oo qadiyadeena ka talisa waxaan aaminsanahay guddigaas uu baaxasan u sheegay inuu yahay guddi maaragtay qadiyada iyo maslaxadda gobolka Shabeellaha Hoose wax ka qaban doono haday noqon lahayd international